شيء أنا دردر قسمي دبودك لغو مع شيء دائما يوماتي ذي شفت ذو شيء والكود هذا دوسي وسامي حناني يو دريالي ينودت كنا بدكو سيخو دائما يوماتي ذي شفت ذو شيء والكود هذا دوسي وسامي حناني يو دريالي ينودت كنا بدكو سيخو halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan DDSI meel kasta oo dunida dacaladeeda ka joogto waxaan leeyahay salaanta islaamka idinku salaamay caawa halkan waxaan isugu nimid inaanu gudoomiyo dhisano laba gudoomiye musharaxiintu labay ahaayeen wiil iyo gabadh bay ahaayeen waxa ku guuleystay wiilkii oo ah Jamaal Sheekh Ibrahim Cadde gabadhana waxay ahayd Sahra Shaarub waa lagaga guuleystay ما شاء الله tartan kan markii la soo wada galayo de labada qof midun baa guuleysta labadoo ma wada guuleysato marka aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa saarana waxaan leeyahay next time bay soo sharixi doontaa insha Allah aad iyo aad baan u salaameynaa aad baan u soo dhaweynaynaa waxaan kala ku dartanayaa gudoomiyaheena cusub ee la dhisay ee Jamaal far kaliya fool ma dhaqdo in la wada shaqeeyo oo garabka la siiyo wada jir gacmo wada jir bay wax ku qabtaan anigoo magacayga Fardowsa Suldaan Maxamuud Haybe السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa halkan waan salaamaya dhamaan maaragtay marti sharafta halkan iskugu timiday iyo dhamaan qurba joogta iyo qaran joogta reer DDSI qof kasto DDSI ah waxa halka caawa nooga qarbsoontay doorasho xor iyo xalaal ah waxa is soo sharaxay laba gudoomiye gabadh iyo wiilku waa Jamaal Sheekh Ibrahim gabadhuna waa Sahra Cabdullaahi Shaarub waxa ku guuleystay Jamaal Sheekh Ibrahim waan u hambalyeynaya gabadhii laga guuleystayna waxaan leeyahay next time insha Allah ayaad ku guuleysan doontaa waan jeclaan lahayn inay gabdhuhu marka ka dambe ay xilka gudoomiyenimada ee jaaliyada UK ay u soo istaagaan qabtaana insha Allah waxaan ka salaamayaa dhamaan dadka dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ugu horeeyo madaxweynaheena Cabdi Maxamuud Cumar xafidullah iyo kamaneedkiisa dhamaan xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya ha guuleystaan leeyahay midnimo waarta والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا لكن كسلام يا دمان ضدك سوء قاسمي مناسبة قالقة اللي دورني قدوميها عصب جمال شيخ إبراهيم waxaan leeyahay hambalyo xilka aad qaaday ilaahay ha kula garab galo waxaana ka codsanayaa jaaliyada inay la wada shaqeeyaan wiil iyo gabadhba in la garab istaago oo hal meel aynu ka soo wada jeedsano dardaarankiina waxaan idinku siinayaa wax qabad horumar iyo dadaal waxaan leeyahay in waxa aad uga soo shaqeeyay arintan Axmedeega أحمد مراد لما جودي قبلها جودي قابضة يرجع سلطان فردوس محمود هيبة فاني دوجت كين دبيعه دقة عبد الله سعود عبد الرحمن لما وحنا يتشاليه ده ويلي قبر بوالس كدوبي هاي وحنا الله يهرا الله سعنايا وحنا كسلام يا دمان دولة ديان كسومالي إثيوبيا ملك ستويتشوغان أنت مقعي موقعي تقانا بوسلام يا نود مهتنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم أنا سعود عبد الرحمن معلن وحن دمان سلام يا ولا لها قالقة حفلة قروح بدن سواء قاسمي ما شاء الله ويلي قبل بهم بلي أنا وانا مهتنتين اسكت دوبنا دا قروح بدن وناكسن
insha Allah ku waara weligiina saa gamcaha isu haysta waxaan maxaan ku raday u hambalyeeynayaa gudoomiye Jamaal Sheekh Ibrahim Cadde oo ku guuleystay xilkii gudoomiyenimada waxaan leeyahay walaalkay ma sha Allah xilkaaga Ilaahay weyna waaxid ha kula qabto Ilaahay idamkiisa dhamaantayana inaan kula wada shaqeyno Ilaahay idamkiisa in lagu wada shaqeeyo dhamaan dawladda deegaanka Soomaalida Itoobiya oo ugu horeeyo madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar aad iyo aad baan u salaameynaa waxaan leenahay dhamaantiin meel kasta joogtaan nabad iyo sharaf ku noolaada walaashay Sahra Shaarub oo laga guuleystay gudoomiyenimadiina waxaan leenahay walaashay macaan hore u soco waxaad noo maaragtay waxaad na tustay calal adayg iyo maxaan ku raadayay geesinimo insha Allah next time ayaan ku guuleysan doonaa gudoomiyenimada gabdhahana ma sha Allah waxaan leenahay adiguna niyadaada horaha u socoto yaan leenahay dhamaan gabdhaha iyagoo dhan waan u hambalyeynaa wiilashoo dhan ma sha Allah jaaliyada sharafta badan DDSI aad baan wada salaamayaa dhamaantood wiil iyo gabadhba assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan leeyahay waxaan isugu nimid doorasho ma sha Allah si cadaalad u dhacday ay ku tartamayeen wiil iyo gabadh Sahra Shaarub iyo Jamaal Sheekh Ibrahim ma sha Allah waxaan leeyahay wiilkii baan ku guuleystay aad baan ugu faraxsanahay Sahrina waxay noo bilaawday majarihii gabdhaha oo aan insha Allah future-ka isu soo sharixi doono hadaan gabdhaha nahay ما شاء الله geesinimo leh ayay maartay u hadashay ay noo qancisay waxaan leeyahay aad baan ugu faraxsanahay hambalyo بسم الله الرحمن الرحيم waxaan salaamayaa jaaliyada DDSI ee caaw ku kulantay hoolkan sharafta badan ee isugu imaatay dhamaantood inay ay doortaan gudoomiyahoodii xaqa iyo xalaasha ahaa gudoomiye Jamaal Sheekh Ibrahim waxaan leeyahay Jamaal guuleyso insha Allah jaaliyada tii isku duubnaato oo gabadh iyo wiilba gacmaha isqabsata Allah ka dhigo midii mutafaqa Allah ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa wax khilaaf unuusan dhaxmarin oo jaaliyada xaq ahayd ay caawa tahay ee gudoomiyaheedii iyo ku-xigeenkeedii iyo ku-xigeenkeedii la doortay waxaan leeyahay inta ka soo qayb gashay xitaa caruurtii waan wadanaa waad aragtaan waa ku caruurtii hambalyaan leenahay hambalya waan u dhannahay caawa aad baan ugu hambalyeynaa FIFA DDSI. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madaxkii waa Maxamed Abdullahi waan ku salaamayaa dhammaan DDSI. FIFA DDSI. magacayga waa Jineer Axmed Taan oo ka mid ah jaaliyada DDSI UK waxaan caawa aad iyo aad ugu faraxsanahay inay noo dhacday doorasho xor iyo xalaal ah doorashadaasi oo ay ku tartamayeen gabadh iyo wiil waxaan soo dhaweynaynaa waxaan ugu doortay cod aad iyo aad ayaa dooratay doorasho waxay ahayd xor iyo xalaal waxaan soo dhaweynaynaa maamulkii cusbaa ee jaaliyada DDSI UK oo lagu dhisay halkan caawa oo aan loo kala harin ayaan maartay rabnaa inaynu istaarno new beginning maartay new beginning kaas oo ah in jaaliyadii la mideeyo in maartay laga saaro khilaafaadka iyo xagga xagga jaaliyada loona socdo horumar iyo in maartay deegaankeena iyo dalkeena wax u qabanno halkan aynu maartay idan jaaliyada DDSI UK halka joogto loo qabto shacabka la caawiyo marka waxaan noo bilownay بيج عصب أنا فرمي بيج عصب إن شاء الله وكذا ميت جود يجوا بدمنا وحكموا في شيء من أول الأيام نسكت اللي عيالي هريتهم ولما شارين الديساي أي مدة من الموضوع يسجلين نقطع شفتها مانتا لكن والله أنا أقصد وين أنا بقول صوب الجارين وكعبوا فلان قلب فرنيس أي نقعبان خمسة سأل درك يدك نروحوا وعقلوا في شيء إن صلنا هيئة سوفرة واللي القمة international development association هيئة داسي وأنا أرجع من يجاب دوبي كاهي وحكرجس كنيسة هاي كيني وحكرجس بيننا هو اللي بنقول لك وحنوع رولنا بالليل يعوض تكي
soomaalida ahaa ee soomaalida Itoobiya lagu laayay wixii hormada lacag baan u aruurinaa ruuxooda waxa ka codsanayna inuu galo gofundme.com/inflation wixii awoodiisa ku bixiyaalkaas lacagtaas waxay toos ugu tagaysaa dadka masaakiinta ee lagu gumaaday wixii ka badbaaday intooda ka hadlay in la soo badbaadiyo laga soo raro deegaanka lana kala dhigayahay ama halkooda lagu badbaadiyo lagu geeyo wixii hormaado marka laga qayb qaato hay'adda waxay ka shaqaysa magaceeduna waa ka jida isagoo xor ah isagoo aan la qasbin isagoo aan lacag la siin isagoo aan la laabishin isagoo aan loo tegin sidiisa uu fadhiyey ayuu ku codeeyey si xor ah oo uu habi yahayna uu codeeyey dhammaan jaaliyaduna caawa habi bay wada ahaayeen waxaan halkaan aad iyo aad ujeedaheena cusub jamaal sheekh ibraahim oo caawa ku guulaystay aqlabiyad aad u badan oo gacantaag ahayd oo qof maanta la qasbayay usan jirin waxaa kaloo aan ku hambaleynayaa labada gudoomiye ku-xigeen koowaad iyo talabaad mahdi ibraahim waxaa kaloo ku hambaleynayaa cali yuusuf iyo dhammaan dadkii halkaan isugu yimid oo si xor amaanta aqlabiyad ah u dhiibtay waxa aan leeyahay jaaliyadda DDSI UK ha jirto ha waarto ha jirto ha joogto ha guulaysanimo midnimo cadaalad iyo sinaan waxaanu balan wiilkana waxaan kusoo dhaweynayaa qadar walaalkay oo garabkayga taagan qadar kusoo dhawo godbool وقت شرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم دمان عاود دورشدي guusha heeday halkaan aan ka gaarnay jaaliyada DDSI ee UK aan halkaan ka gaarnay ayaan rabaa inaan hambaleeyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo guddigii farsamadii dhamaan jaaliyada oo dhan waxaan leeyahay macnaha guuleysta waxaan leeyahay guul baa la gaaray waxaan leeyahay isku duubnaada hore u socdo midnimada jaaliyada laga shaqeeya gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo tarasharigan in lala shaqeeya gacmaha la isqabsada marka la isgarab istaago waa jaaliyada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan mahadle ilaahay halkan isugu keenay waxaan caawa aan u celinaynaa mahad gaara guddigeena soo qaban qaabisay doorashada aan ku qabanay halkan ee jaaliyada dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya UK rahmatullahi wa barakatuh waxaan halkan aan xambaliyo iyo bogaadin uga direynaa maxay guddigeena inoo soo qaban qaabisay doorashada inuu caawa halkan ku qabanay waxaan leenahay ilaahay khayr iyo xasanada in ka siiyo gudoomiye la doortayna waxaan leenahay Awguuriyo
gudoomiyihii laga guuleystayna waxaan leenahay awguuriyo insha Allah isagana iyadana baan leeyahay gabadh bay ahayd insha Allah waxaan kaloo aan mahad celinayaa dhammaan dadkii ka soo qayb galay shacabweynaha dawlad deegaanka Soomaalida ee UK waxaan leeyahay Ethiopia marka ilaahay khayrana siiyo ilaahay muxuu khayrkaana waafajiyo awguuriyo salaamada I love you, DDSI. Thank you.
anoo Dr. Khadar Maxamuuda waxaan u hambaleynayaa jaaliyadda waxaan leeyahay guul iyo wanaag. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو أحمد مراد نور. waxaan ka soo jeedaa gobolka Qoraxay. runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay caawa waxaa ka dhacay macnaha doorashada ka dhacday Harleston gaar ahaan Safari Hotel taasoo lagu qabanayay doorashadii jaaliyadda DDSI UK. runtii aad baan uga mahadcelinayaa sida sharafta badan ee qiimaha badan ay caawa noogu dhacday. waana wax taariikhda gelaya oo lama ilaawaana runtii waxa weeye doorasho biisa oon qaylo lahayn oon buuq lahayn oo xor iyo xalaala oo si fiican qof walba isagoo habbi u foodgareeyey. marka aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha sharafta leh ee gabdhaha iyo wiilasha leh. runtii horaan u soconaynaa insha allah. waxaan kaloo halkan uga taanideynayaa dhammaan gudoomiyaha iyo labadiisa ku xigeen iyagana waxaan leeyahay xilkaa loo magacaabay ilaahay ha u fudaydiyo kuwii ka soo baxana ilaahay uga dhigo. annaguna insha allah waxaan ku dadaalaynaa inaanu la qabanno garab istaagno oo la shaqayno hadduu ilaahay yidhaahdo. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. jaaliyadda DDC ee maanta laga xukumay in London UK aad baan u hambaliyaynaynaa dhammaantoodba aad baan u hambaliyaynaynaa. waxaanu leenahay jaaliyaddii dadkii isku duubnaada ilaahay ha ka yeelo. anuu magacaygu yahay Sheekh Ali Xafiif inaan xasan warasayo sidaasaan u hambaliyaynayaa insha allahu. wasalaamu calaykum. shiftadu dishay waalidkooda adaa dugsiyo saameeyey xanaaneeyo daryeelay inuu dadku nabad ku seexdo dadaalkaaga ku gaarnay daa'imadiyo maatiday shiftadu dishay waalidkooda adaa dugsiyo saameeyey xanaaneeyo daryeelay inuu dadku nabad ku seexdo dadaalkaaga ku gaarnay duumada iyo qaaxadiyo dabaysha jareecadii
dabaysha jaaleecadii